بسم الله الرحمن الرحيم runtii shirkan jiraad wuxuu la xiriiraa hawlgal saddexdii bari oo la soo dhaafay ka socday magaaladan Gaalkacyo sida bulshada reer Galmudug iyo Soomaaliyeed bay la socdaan magaalada Gaalkacyo maalmahan oo dhan waxaan ka wadnay hawlgalla amniga la xiriira gaar ahaan midka muuqda oo maleeshiyaadka iyo xareyntooda iyo ku saabsan iyo checkpointyada in laga wareejiyo waxa barbar socday hawlgallo kale oo argagixisada oo runtii halkan ukuma xoogan ay u yaalaan oo sababay inay dilaan dad badan oo muhiim ah bulshadan ka tirsan waxaa jiray unugyo ka tirsan wasaaradda amniga oo kaashanaya ciidamada danab runtii maalmihii la soo dhaafay waxay qaadeen hawlgallo guuleystay oo argagixisada dadkan u hanjabi jirtay ee la deganayd lagu qaaday waxaana lagu guuleystay xalay ka hor daraad waxaan qabanay miino kuwa baabuurta lagu dhajiyo oo hadafkeedu ahaa in aniga oo wasiirka amniga Galmuduga baabuurka la igu dhajiyo kadibna halkaas maaragtay khasaaro uu ka dhasho miinadaas markaa qabanay waxaan daba galnay dhammaan kooxihii ka dambeeyay waxaan ku guuleysanay xalay mid ka mid ah kooxihii miinada soo galiyay oo argagixisada halkan wakiil uga ahaa laakiin bulshadu ganacsade caadi ay u taqaanay oo biyaha geegayn jiray oo la yiraahdo Aways Macallin Maxamed Xasan in xalay fiidkii lagu qabtay magaalada Gaalkacyo koonfurteeda asagoo miino wada gacantiisa ku wada marka uu maaragtay meelna gelin rabay ninkaas odaga markii la xiray oo interview la weydiiyay wuxuu isna sheegay amiirkii deegaankan qaabilsanaa oo runtii asaguna hawlgallo badan oo dad muhiim ah lagu dilay labadooduba iyo kooxo kale oo ayaga wehliyahay ee halkan ka fuliyeen waxaana ninkaas la dhihi jiray Maxamed Xasan Faarax oo ku magac dheeraa Xuseen oo ka soo jeeda Laascaanood ninkan dambe oo amiirka ahi wuxuu la diriray ciidamadii amniga wuxuuna isku dayay inuu ka baxsado kadibna rasaas ayay bistoolad ayuu watay bistooladii xabado badan ayaa la isdhaafsaday kadibna halkaas ayay ciidamada amnigu ayay ku dileen asagoo isku dayay inuu ciidamada amniga qaybo ka tirsan uu meesha ku laayo hadafka hawlgalka horaan u sheegnay hawlgalkoodu wuxuu ahaa inay wasiirka amniga ama cid kastoo muhiim ah oo reer Galmudug ay beegsadaan wuxuu ahayd in ay dhiciseeyaan howlaha amniga iyo dawladnimada ee ka socota goboladan Galmudug xogta hordhaca oo aan ka helnay baaridda hadda ninka la hayo kan laftiisa muddo dhaawac ayuu ahaa xogta laga hayo waxay tahay in ay ka dambeeyeen dilal ka dhacay saraakiil muhiim ah oo reer Galmudug ah oo lagu dilay koonfurta Gaalkacyo inay ahaayeen tiimkii qorsheeyay oo qaarkood ay ka dambeeyeen ayaga iyo kuwa kale waxaan runtii rabaa halkan inaan uga diro digniin dadka ku dhaqan Gaalkacyo Galmudug oo aan u diro fariintaydu inaysan gabaad siin kooxaha argagixisada inaanay qabiil iyo qabyaalad ku soo raasan dadkaas ayaga dadkoodii muhiimka ah dilaya haddana u heelan ama u socda inay dhiig kale galaan oo dad muhiim ah oo reer Galmudug oo madaxdooda inay dilaan qorsheynaya waxaan runtii kala ogaanay waxaan uga digaynaa oo kale in kooxaha argagixisada ay maaragtay meelaha ay ku gabadaan inay naxariis ka helaan oo guriga laga kireeyo oo qalabka qarxiska oo ay wadaan loo qariyo waxaan runtii rabnaa inaan bulshada reer Galmudug ugu bashaarayno gaar ahaan Gaalkacyo in kooxaha argagixisada laga ciribtiri doono deegaamadan oo runtii ay dadkii ganacsatada ahaana bajiyeen odayaashii dhaqanka u hanjabeen dhalinyaradii u hanjabeen sidaasna looga aamusay laakiin hadda dawladda Galmudug siday u timid iyo ciidamadeeda amnigu waxay runtii argagixisada ay ugu bashaaraynayaan dadka reer Galmudug in argagixiso meeshan laga weyn doono waxaan naqaanaa ninka hawlgalkan ka dambeeyay oo ah nin xarar dheer joogay oo deegaankan ka soo jeeda isaguna insha Allah taala gacanta ciidamada xooga ciidamada amniga qaranka Soomaaliya iyo kuwa Galmudug oo iskaashanaya ayuu ku bixi doonaa waxaan runtii rabaa inaan mar kale digniin u jeediyo
in argagixisada sidaas looga takhalusi karo loo qoqoban karo laakiin dadka reer maaragtay deegaankan degani inay gacan siiyaan hay'adaha amniga oo argagixiyaha ay arkaan iyo al-shabaabka ay arkaanba inay soo wargeliyaan waxaana naga go'an inaan deegaankan ka nadiifino oo meel ay gabbaad dhigtaan laga waayo ilaa midkooda u dambeeya aan ka saari doono waxaana lagu tegi doonaa runtii goobaha ay joogaan si kastoo iskugu soo dayaan inay ku cabsi geliyaan qaraxyana inay isku dayaan inay dad taargad gareeyaan dad muhiimana runtii kuma guulaysan doonaan dadka reer galmudugna waa feejigan yihiin waxaan runtii abaalmarin siin doonaa oo haddaba ah nin muwaadin reer galmuduga oo gacan siiyey ciidamada amniga waxaan runtii abaalmarin siin doonaa dad kale oo xogana siiyey muhiima labadii beri oo la soo dhaafay oo argagixisadan meelahay joogtay iyo kulli noo tilmaamay waxaan kaloo ku daba jiri doonaa insha Allah kuwa kaloo hadeertaan isku dayay inay ku dhuumaaleystaan magaalada Gaalkacyo in ayagana gacanta lagu soo dhigi doono waxaan leeyahay reer galmudug u soo jeesta amnigiina argagixisaduna waa tabar daran tahay wax lacaga iyo wax baada iyo tagis cid ay u yeeraan oo taleefanka ugu yeeraan cid tagi kartaana ma jirto ciddii tagtana ciddii lacag siisa kulligood runtii waxay noqonayaan dad qayb ka ah dambiga ay geysanayaan kooxahaas argagixisada waxaan rabaa inaan ku soo gunaanado inaan u mahadceliyo ciidamada amniga booliska iyo nabad sugidda iyo ciidanka danab oo runtii qayb libaax la ka ciyaaray howlgalladan oo aan leenahay guulaysta horena u socdo